Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaa kusoo dhawaataan waa Jubayare Official. Waxaan leeyahay like and share, subscribe. Gambaleedka marka kusoo baxo dhow uu yidhaahdo ha igala baqaylin. Isaar wax lacag maaha. Waa iscaawinaynaa in wax la istiro aad bay u wanaagsan tahay. Halkan waxaa maanta aan usoo fariistay. Waxaan rabaa cabitaan yar oo aniga aan muddo qaadanayay oo la magac baxay Herbalife Nutrition. Marka waxaan rabaa in aan la wadaago dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed meel walbay joogaan shaygan ama cabitaankan aan qaadanayay waxa uu yahay iyo faa'iido uu leeyahay. Marka hore waxaan leeyahay horta waxa waliba waxay ku fiican yihiin qofka markuu asaga markuu uu bilaabo oo ilaa iyo muddo uu wado aad ay u fiican tahay inuu bulshada maaragtay soo hordhigo. Waana wax wanaagsan inaa waxa adiga aad samaysay inaad dadka maaragtay aad tiraahdo waxaan aniga sameeyey, waxaan aniga ayaa arkay, dadka aad ku dhex dhigtaa, aad u sharaxdaa, aad u sheegtaa waxa ay yihiin. Adduunyada waxaa ugu daran wax aadan waxba ka ogeyn inaad dalaq aad tiraahdo oo aad wax ka sheegto ama aad tiraahdo way xun yihiin. Qof waliba ilaahay jirka bini'aadamka uu uumo isku mid ma aha. Halkaa aan ka gudbo oo aan barnaamijka aan docda aan ka galo. Waxaa laygu yaqaanay halkaa iyo xoogaa inaan heesooyin halkaas iyo maaragtay aan ka yara heeso laakiin waan isku dhex wadaa. Shabaq shabaqay ku taallaa, shabaqay ku jirta. Way fiican tahay qofka maaragtay inuu meel walba inuu kubadda ka ciyaaro. Hore loo yidhi muhiimihi maaha. Waxa aan ka hadlayo waa labada maxalood. Laba dhinac iga yaalla oo aniga aan cabo oo shayga aan qaato aan ka hadlayaa. Waa maxay Herbalife Nutrition? Herbalife Nutrition waa company ku takhasusay xagga cuntooyinka dabiiciga ah. Marka aan leeyahay xagga cuntooyinka dabiiciga ah, Herbalife wuxuu furan yahay muddo aad iyo aad u badan ayuu furan yahay company-gan. Company-ga anigu iska malihi, wax xayeysiin uma sameynayo. Muddaan qaadanayay shaygan aan caabayay marka waxaan dadka usoo bandhigayaa waxa aniga aan qaatay inaan ka hadlo. Company-gan wuxuu ka furan yahay 96 waddan, 96 waddan oo dunida caalamka ah ayuu ku leeyahay maaragtay hay-ado ku leeyihiin ama macallimiin ay joogaan. Aniguna macallin baan ahay, coach ayaan ka ahay Herbalife Nutrition. Waan jeclahay inaan meel heer sare kasii gaaro hadduu ilaahay yidhaahdo. Wax walba waxay ku xidhan tahay waqtiga iyo waayaha ayay ku xidhan tahay. Haddaa u baahan tahay Herbalife oo maaragtay aad noqonayso member macallin yani arday aad noqonayso arday aad noqonayso aniga ila soo xiriir. Aniga ayaa membershipka kuu sameynaya. Aniga ayaa wax kastoo aad u baahan tahay Herbalife kuu kala dhigaya kuuna sheegaya. Insha Allah haddii inta aan ka gudbo. Herbalife company-gan wuxuu uu leeyahay dhaqaatiir isaga u gooniya iyo kuwa cuntada ka eega. Company-ga markuu wax soo saarayo wuxuu u baahan yahay khubro cuntada ka eega. Waddamadan aan deganahay aan joogno, Maraykan ama Yurub ama Afrikada aan joogno, cuntooyinka markii qofka uu company uu leeyahay ama wuxuu soo saaro waxaa jira hay-ad ka fiirisa cuntada ka eegta. waa la fiirin, waad u geynaysaa. Markaa u geyso waa la isticmaala, waa la fiirinayaa. Kadib ayaa mataqaanaa
haddii waxaagan wax soconaya ay yihiin oo ay suuqa ay gelayaan oo yihiin sorry biyo badan cabo waaye biyo badan cabay biyaha caafimaad leeyihin marka caagan ayaga maaragtay ii soo diray marka jimka aadaa biyaha ku qaataa marka kambaniga wuxuu leeyahay dhakhaatiir ka egta iyo shirkad ka fiirisa cuntadan la suuq geynayo ummadda bini'aadanka maxay dhibaato u keeni kartaa dad badan ba waxaa jira oo Herbalife bac looga xiray oo waxaa jirta been loo sheegay oo la yidhi waa lagu jirinayaa saana ku noqonaysaa saan baa ku noqonaysaa saana ku noqonaysaa bini'aadanka ilaahay uu uumay rag iyo dumarba kuwa guriga kula jooga adiga kula dhashay walaalahaaya hadday yihiin 3 hadday yihiin 10 hadday 2 yihiin isku dabeecad ma tihiin ilaahaygii uumay ayaa qof walba jirkiisa wuxuu ka dhigay gooni marka haddii adiga jirkaaga uu wax ku dhibaayo inta aadan qaadan herbal iska dhaafay waxyaalo kasta aad qaadanaysid marka hore waxaa fiirisaa in aad jirkaaga waxa ku dhibaaya iyo waxa aan ku dhibin iyo waxa aad jeceshahay inaad kala ogaato ayaa wanaagsan haddii laakiin inta lagu soo waco lagu yidhahdo oh Herbalife waa lagu xanuunsanayaa haddii herbal aad jeceshahay macmilka adaan kula hadlayaa herbal aad jeceshahay TV aa ka daawatay YouTube aa ka daawatay Facebook ku aragtay Snap aa ku aragtay TikTok ku aragtay meel walba ku aragtay qalbiga waa ka rabtaa inaad ka mid noqoto laakiin maxaa lagu sheegay bac madow baa lagugu xiray waa baqi kikikida maya adiga nafta ahaantaada ayaa waxaa waaye mataqaan in aad fiiriso waxa adiga aad jeceshahay iyo waxa aad jecel qofku wuxuu ku sheego ha qaadan marka adiga wixii aad ku jirto adiga isbaar waxaa dhahdaa aniga maxaa iga qaldan marka insha allah marka waxaan leeyahay orodka badan maxaa la dhihi jiray laamiga loogu soo dhacaa banaanka marka waxaan ii sheegaya macmilka wax walba waxay u baahan yihiin hofsiimo hal baa la siistaa baa la yidhi hadda waa hal Herbalife waa cunto dabiiciya Herbalife waxaa ku jira faytamiino aad iyo aad u fara badan maanta haddaan iraahdo Herbalife aan ka sheekeynaya 3 video ka badan 10 video ay ku qaadanaysaa waxyaalaha uu faa'iido u leeyahay kow maxaa ka mid ah Herbalife waxaa ku jira faytamiinaadka koowaad vitamin A waxaa kaloo ku jira vitamin B vitamin B12 vitamin C waxaa ku jira mineralka ku jira kalis vitamin E waxaa ku jira vitamin B6 ku jira waxaa ku jira vitamin B12 baa ku jira Herbalife wuxuu leeyahay miisaan kordhid iyo miisaan dhimid labadaba herbalku wuu leeyahay qaabka loo qaatana insha allah maalin kaleeto ayaan iisoo gelin doonaa anigoo labadan sheeg qabsanaya dad waxaa jiro ayagoo Herbalife marka aad gelayso waa inaad leedahay coach waa inaad macalin leedahay micnaha anigoo kaleeto ama qof kaleeto ama gabar ama wiil Herbalife-ka kaaga horeeyay kaaga khibrad dheer waa inaad la xiriirtaa macalinkaaga la kaasho telephone ka wac WhatsApp ka wac haddii isku magaalo degan tihiin u sheeg waxaa ku dhahdaa ku dheh macalin maxaan qaataa macalimadee maxaan qaataa sidee isugu dardaraa hadda inkastoo maaragtay hadda wax walba YouTube ay ku jiraan oo qaabka la isugu dardaray dad waxaa arkaysaa shaygan labadan sheeg dad waxaa arkaysaa hal xaba qaadanayo oo nooc kale u qaadanayo ayna aqoonin waxa jirkooda ay u baahnaayeen labadan xabo formula 1ka iyo protein milk drinka waxa waaye jirkaaga ayay waxay u sameynaysaa dheelitir ay u sameynayaan marka waa u baahan tahay labada xabo inaad ku qasato Herbalife wuxuu leeyahay energy waxaa laga yaabaa maalintii oo dhan haddii aad shaqo aado ama haddii aad iskuul aado ama haddaad guriga joogto cuntooyinka adiga aad qaadanaysid waxaa laga yaabaa in ay maaragtay enerjigooda kugu yaryahay yani vitaminaadka ku jira aad ku qaadanaysid
hadda waxaasoo dhan waxa waaye ukuntii oatmealkii sida loo yaqaano boorashkii wixii oo dhan suukaasoo kooba halkan lagugu shubo waaye just right there all of it. Marka caafimaad badan ayaa ka helaysaa oo jirkaaga u baahan yahay. bacda laisku xiraaya oo beenta ahana ha la iska daayo, dadka laga sheegaya beenta loo sheegayona ha la iska dhaafo. waxa waaye qofku waxa u wanaagsan inuu asaga soo tijaabiyo haddii aa wixii aa ku jirato oo wixii dhibaatooyin badan aa kala kulanto, adiga nafta ahaantaada dhakhtarka u tag. dhakhtarka waxaa kuta dhakhtarow aniga waxaan ku xanuunsaday ka hor isbaar haddii aa ku jirato, haddii aad ku jiranba. jirkaaga wuxuu u baahan yahay every 6 month inuu qofka inuu isbaaro uu fiiriyo waa jirkiisa maxaa dhibaya iyo maxaanse dhibaynin. Herbalife waxaa kaloo ka helaysaa jirkaaga oo helaya maaragtay fitamino aad u fara badan soo sheegay. waxaa kaloo helayaa maxaan ku idhahdaa maalintaada ee ku noqonaysa maalin aad u qurux badan, maalin aad iyo aad u wanaagsan. ilaahay baa horta maaragtay farxadda haya. Herbalife marka aniga aan qaato ahaantay markaan qaato subax markaan soo kaco kaleeto oo labada shay aan qasto aan cabo maalintii oo dhan waxaa weeye waxaan helayaa energy helayaa. dadaa waxaa jiro maanta inay fadhiyaan oo caajis badan qabanayo. marka waxaan idin leeyahay insha allah intaan iska arki doonno videoga xiga. waxaan idin leeyahay like and share and subscribe isaar, hana ka moogaan hana ka maqnaanin. sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaa kusoo dhawaataan waa Jubayare official. waxaan leeyahay like and share subscribe. gambaleedka marka kusoo baxo dhow uu yidhaahdo ha igala baqaylin. isaar wax lacag maaha, waa iscaawinaynaa. in wax la istiro aad bay u wanaagsan tahay. halkan waxaa maanta aan usoo fariistay waxaan rabaa cabitaan yar oo aniga aan muddo qaadanayay oo la magac baxay Herbalife Nutrition. marka waxaan rabaa in aan la wadaago dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed meel walbay joogaan shaygan ama cabitaankan aan qaadanayay waxa uu yahay iyo faa'iido uu leeyahay. marka hore waxaan leeyahay horta waxa waliba waxay ku fiican yihiin qofka markuu asaga marka uu bilaabo oo ilaa iyo muddo uu wado aad ayay u fiican tahay inuu bulshada maaragtay soo hordhigo. waana wax wanaagsan inaa waxa adiga aad samaysay inaad dadka maaragtay aad tiraahdo waxaan aniga sameeyey, waxaan aniga ayaa arkay. dadka aad ku dhex dhigtaa aad u sharaxdaa aad u sheegtaa waxa ay yihiin. adduunyada waxaa ugu daran wax aadan waxba ka ogeyn inaad dalaq aad tiraahdo oo aad wax ka sheegto ama aad tiraahdo way xun yihiin. qof waliba ilaahay jirka bini'aadamka uuma isku mid ma aha. halkaa aan ka gudbo oo aan barnaamijka aan docda aan ka galo. waxaa laygu yaqaanay halkaa iyo xoogaa inaan heesooyin halkaas iyo maaragtay aan ka yara heeso laakiin waan isku dhex wadaa. shabaqay ku taallaa shabaqay ku jirta. way fiican tahay qofka maaragtay inuu meel walba inuu kubadda ka ciyaaro. hore loo yidhi muhiimihii maaha. waxa aan ka hadlayo waa labada maxalood laba dhinac iga yaalla oo aniga aan cabo oo shayga aan qaato aan ka hadlayaa. waa maxay Herbalife Nutrition? Herbalife Nutrition waa company ku takhasusay xagga cuntooyinka dabiiciga ah. marka aan leeyahay xagga cuntooyinka dabiiciga ah Herbalife wuxuu furan yahay muddo aad iyo aad u badan ayuu furan yahay companygan. companyga anuu iska melihi wax xayeysiin uma sameynayo. muddaan qaadanayay shaygan aan caabayay marka waxaan dadka usoo bandhigayaa waxa aniga aan qaatay aan
qaatay inaan ka hadlo. Kambanigan wuxuu ka furan yahay 96 waddan, sorry, 96 waddan oo dunida caalamka ah ayuu ku leeyahay maaragtay hay-ado ku leeyihiin ama macallimiin ay joogaan. Aniguna macallin baan ahay, coach ayaan ka ahay Herbalife Nutrition. Waan jeclahay inaan meel heer sare kasii gaaro hadduu ilaahay yidhaahdo. wax walba waxay ku xidhan tahay waqtiga iyo waayaha ayay ku xidhan tahay. haddaa u baahan tahay Herbalife oo maaragtay aad noqonayso member, macallin, yani arday aad noqonayso arday aad noqonayso, aniga ila soo xiriir. aniga ayaa membershipka kuu samaynaya. aniga ayaa wax kastoo aad u baahan tahay Herbalife kuu kala dhigaya, kuuna sheegaya. insha allah haddii inta aan ka gudbo, Herbalife kambanigan wuxu uu leeyahay dhaqaatiir isaga u gooniya iyo kuwa cuntada ka eega. kambaniga markuu wax soo saarayo wuxuu u baahan yahay khubro cuntada ka eega. waddamadan aan deganahay aan joogno, Maraykan ama Yurub ama Afrikada aan joogno, cuntooyinka markii qofka uu kambani uu leeyahay ama wuxuu soo saaro, waxaa jira hay-ad ka fiirisa cuntada ka eegta. waa la fiirin, waad u geynaysaa. markaa u geyso waa la isticmaala, waa la fiirinaya. kadib ayaa mataqaanaa haddii waxaagan wax soconaya ay yihiin oo ay suuqa ay gelayaan oo yihiin, sorry, biyo badan aan cabo waaye biyaha caafimaad leeyihin. marka caagan ayagaa maaragtay ii soo diray. marka jimka aadaa biyaha ku qaataa. marka kambaniga wuxuu leeyahay dhaqaatiir ka eegta iyo shirkad ka fiirisa cuntadan la suuq geynayo ummadda bini'aadanka maxay dhibaato u keeni kartaa. dad badan ba waxaa jira oo Herbalife bac looga xiray, oo waxaa jirta been loo sheegay oo la yidhi Herbal waa lagu jirinayaa, saanaa ku noqonaysaa, saan baa ku noqonaysaa, saanaa ku noqonaysaa. bini'aadanka ilaahay uu uumay rag iyo dumarba, kuwa guriga kula jooga adiga kula dhashay walaalahaya, hadday yihiin 3, hadday yihiin 10, hadday 2 yihiin, isku dabeecad ma tihiin. ilaahaygii uumay ayaa qof walba jirkiisa wuxuu ka dhigay gooni. marka haddii adiga jirkaaga uu wax ku dhibaayo, inta aadan qaadan Herbal iska dhaafay waxyaalo kasta aad qaadanaysid, marka hore waxaa fiirisaa in aad jirkaaga waxa ku dhibaya iyo waxa aan ku dhibin iyo waxa aad jeceshahay inaad kala ogaato ayaa wanaagsan. haddii laakiin inta lagu soo waco lagu yidhahdo Herbalife waa lagu xanuunsanayaa, hadda Herbal aad jeceshahay, macmilka adaan kula hadlayaa. Herbal aad jeceshahay, TV aa ka daawatay, YouTube aa ka daawatay, Facebook ku aragtay, Snap aa ku aragtay, TikTok ku aragtay, meel walba ku aragtay. qalbiga waa ka rabtaa inaad ka mid noqoto, laakiin maxaa lagu sheegay? bac madow baa lagugu xiray, waa baqi kekekega. maya, adiga nafta ahaantaada ayaa waxaa waaye mataqaana in aad fiiriso waxa adiga aad jeceshahay iyo waxa aan jecel. qofku wuxuu ku sheego ha qaadan. marka adiga wixii aad ku jirto adiga isbaar, waxaa dhahdaa aniga maxaa iga qaldan. marka insha allah, marka waxaan leeyahay orodka badan maxaa la dhihi jiray laamiga loogu soo dhacaa banaanka. marka waxaan ii sheegaya macmilka wax walba waxay u baahan yihiin hofsiimo, hal baa la siistaa baa layidhi. hadda waa hal. Herbalife waa cunto dabiiciya. Herbalife waxaa ku jira faytamiino aad iyo aad u fara badan. maanta haddaan irahdo Herbalife aan ka sheekeynaya 3 video ka badan 10 video ay ku qaadanaysaa waxyaalaha uu faa'iido u leeyahay. kow maxaa ka mid ah, Herbalife waxaa ku jira faytamiinaadka koowaad, vitamin A. waxaa kaloo ku jira vitamin B, vitamin B12, vitamin C. waxaa ku jira mineralka ku jira kalis, vitamin E. waxaa ku jira vitamin B6 ku jira. waxaa ku jira vitamin B12 baa ku jira.
Herbalife wuxuu leeyahay miisaan kordhid iyo miisaan dhimid labadaba herbalku wuu leeyahay. Qaabka loo qaatana insha Allah maalin kaleeto ayaan iisoo gelin doonaa anigoo labadan sheeg qabsanaya. Dad waxaa jiro ayagoo Herbalife marka aad gelayso waa inaad leedahay coach, waa inaad macalin leedahay. Micnaha anigoo kaleeto ama qof kaleeto ama gabar ama wiil Herbalifeka kaaga horeeyay, kaaga khibrad dheer, waa inaad la xiriirtaa macalinkaaga, la kaasho, taleefon ka wac, WhatsApp ka wac, haddii isku magaalo degan tihiin u sheeg, waxaa ku dhahdaa macalin maxaan qaataa, macalimadee maxaan qaataa, sidee isugu dardaraa. Hadda inkastoo maaragtay hadda wax walba YouTube ay ku jiraan oo qaabka la isugu dardaray, dad waxaa arkaysaa shaygan labadan sheeg dad waxaa arkaysaa hal xaba qaadanayo oo nooc kale u qaadanayo ayna aqoonin waxa jirkooda ay u baahnaayeen. Labadan xabo Formula 1ka iyo protein milk drinka waxa waaye jirkaaga ayay waxay u samaynaysaa dheelitir ay u samaynayaan. Marka waa u baahan tahay labada xabo inaad ku qasato. Herbalife wuxuu leeyahay energy. Waxaa laga yaabaa maalintii oo dhan haddii aad shaqo aado ama haddii aad iskuul aado ama haddaad guriga joogto, cuntooyinka adiga aad qaadanaysid waxaa laga yaabaa in ay maaragtay enerjigooda kugu yaryahay, yacni fitamiinaadka ku jira aad ku qaadanaysid. Hadda waxaasoo dhan waxa waaye ukuntii, oatmealkii sida loo yaqaano, boorashkii, wixii oo dhan laisku kaasoo koobo halkan lagugu shubo waaye. It's right there all of it. Marka caafimaad badan ayaa ka helaysaa oo jirkaaga u baahan yahay. Bacda laisku xiraaya oo beenta ahana ha la iska daayo. Dadka laga sheegaa beenta loo sheegayona ha la iska dhaafo. Waxa waaye qofku waxa u wanaagsan inuu asaga soo tijaabiyo haddii wixii aad ku jirato oo wixii dhibaatooyin badan aad kala kulanto. Adiga nafta ahaantaada dhakhtarka u tag. Dhakhtarka waxaa ku tiri dhakhtarow aniga waxaan ku xanuunsaday ka hor isbaar haddii aad ku jirato, haddii aad ku jiranba. Jirkaaga wuxuu u baahan yahay every 6 months inuu isbaaro uu fiiriyo waa jirkiisa maxaa dhibaya iyo maxaase dhibaynin. Herbalife waxaa kaloo ka helaysaa jirkaaga oo helaya maaragtay fitamiino aad u fara badan soo sheegay. Waxaa kaloo helayaa maxaan ku idhahdaa maalintaada ay ku noqonayso maalin aad u qurux badan, maalin aad iyo aad u wanaagsan. Ilaahay baa horta maaragtay farxadda haya. Herbalife marka aniga aan qaato ahaantay markaan qaato subax markaan soo kaco kaleeto oo labada sheeg aan qasto aan cabo, maalintii oo dhan waxaa weeye waxaan helayaa energy aan helayaa. Dad waxaa jiro maanta inay fadhiyaan oo caajis badan qabanayo. Marka waxaan leeyahay insha Allah intaan iska arki doonno videoga xiga. Waxaan leeyahay like and share and subscribe isaar hana ka moogaan hana ka maqnaan. Sidaa iyo nabad gelyo.